السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتين بسود هذا ملك استوى أتشوكتان وحن إذن لا يحي بش يا براري الله يدنكو واريو نبض أيام كوسو نقضي إذن كنا إن عاد نبض كوسو لابتين أيام رجينية إن وحن شعلا يستي إن عن مركل إيدين سو تبيو وحقاقي ما ولا ضعها أما السؤال إسويدين تأها إنه السعودي قيبت المنطقة وحن شعلا هاي إن عن إيدين سو تبيو أما عن إيدين سو قبيو برنامجكii u dambeeyay aan afarta su'aalood isku weydiinay afartii su'aalood jawaabahoodii iyo waliba dadkii aadka u maskaxda badnaa ee ka qayb qaadanayay in ay sheegaan isku dayay nin walba tabartiisa iyo maskaxdiisa meel ay dhigtayba xubno kamid ah wax weeyaan aad u sarsareeya in aan iyagana bartan idin ku soo gudbiyo oo wax weeyaan fikir aad qurux badan ka dhigtay su'aalihii laakiin hadii aan guda galo oo inaan su'aalihii soo bandhigo aan isku dayo سؤال waxay ahayd labada shay ee sunnaha ah ee ka ajir badan labada shay ee waajibka ah labada shay ee sunnaha ee ka ajir badan labada shay ee waajibka ah waxa weeye assalaamu calaykum qofku inuu ku yiraahdo sunna weeyaan wa calaykum assalaam inaad tiraahdaana waajib weeyaan qofka assalaamu calaykum ku yiri ayaa ka ajir badan adiga oo yiri calaykum assalaam oo waajib ah isagana assalaamu calaykum tusunay ku ahayd adigana waajib ay kugu tahay hadana isaga ka ajir badan salaada marka la gaadho in aad weysaysataa waajib weeye salaada oo aan la adimin in aad weysaysataa sunna weeye salaada marka ay waqtigeedu gaadho ama la adimo in aad weysaysataana waajib weeye salaada ka hor in aad si weysaysato oo adiga weys qaba lagu adimo ayaa ka ajir badan salaada marka la adimo in aad weysaysato oo waajib ah labadii shay ee sunnaha ahaa ee ka ajir badnaa labada shay ee waajibka ah sida weeyaan dad badan baa gartay ilaahay maskaxda iyo aqliga ha idin siyaadiyo su'aasha labaad labadii nin ee kala ajnabiga ahaa ee labada awlaad ah istaba marsaday labada ubadka ah ay dhalaan maxay isu yihiin aynu niri hadii ay laba wiil yihiin abtibay isu noqonayaan hadii ay laba gabdhood yihiinna habaryar bay isu noqonayaan hadii ay wiil iyo gabadh yihiinna abti iyo habaryar bay isu noqonayaan adiguba isweydii dib u tixraac sababta ay isugu noqon karaan waxa weeyaan in aan idin sii sharaxo waxaan ka doorbiday in aan idin sii sharaxin bal sababta ay habaryar isugu noqon karaan ama abti ay isugu noqon karaan inaad adigu maskaxdaada baadho waayo waqti badan inaan ka cuno ayaan diyaar u ahayn su'aasha xigta waxaan niri ama aan meesha soo dhignay saddex baa macaan sheegtay saddex baa ka maqraatay kacay saddexna waxba kama ogin ayay yiraahdeen saddex baa macaan sheegtay diin ayaa macaan sheegatay sheekh ama caalim ayaa ka maqraatay kacay macaankeeda jaahil ama caami ayaa tiri anagu waxba kama ogin waayahay dheef ama biyo ayaa macaan sheegtay caraba ka maqraati kacay calool baa tiri anagu waxba kama ogin waa la igu ridaa dumar ayaa macaan sheegtay nin guursaday ayaa ka maqraati kacay doob aan weligiiba dul fadhiisanin baa yiri anagu waxba kama ogin su'aasha xigtay ee afraad aad baad u wada garateen dadka intooda badan way wada garteen dad ehlo dhaqanaad tihiin dhirtii iyo geedashii dhulkeena ka bixi jiray ayaad soo taxdeen inkasta oo lahjadu ay kala duwan tahay oo ninba lahjad uu isticmaalayo haddana kulli waxa weeyaan dhirtaas waad wada garateen iyagoo duuduuban haddii aan idin sheego waa dhirta geed quwaaxa loo yaqaano ama geed nugeylka loo yaqaano aad u fara badan yihiin toban bas soo qoraan nidhi laakiin dadka qaar baa 40 geed ka qori kara oo kala duwan waxa uu heliya dhowr geed oo kale sida dharkaynka dhunkaasha geedka la yiraahdo xaskusha iyo dhir kale oo fara badan ayaa geed quwaaxa uu helisay kolkaas sida daraadeed wad wada garateen si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa waxa dadkii ka soo dhaxbaxay oo isku dayay su'aalaha dhamaantood afartaba in uu ka jawaabo hal qoraal kaliyana uu ku soo wada bixiyo Abdullaahi Sheekh Haajir Abdullaahi Aswad oo jooga gobolka Qoraxay
degmada Shilaab wuxuu isku dayay in uu 4 su'aaloodba ka soo jawaabo laakiin su'aal baa in yar yar ama qalad yar kaga jira sida kale dhammaan waa wada saxay aqoonyahan Soomaaliyeed weeye diin iyo dunuwi labadaba ka aflaxay dhammaantiin aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin su'aalihii qaabka aan u furray qaabkaasay noqdeen haddii ay wax naga khaldan yihiin oo raalli ahaanaysaan bini aadan baan nahay wax badan baa la qalbi karaa insha Allahu kariim barnaamijka xiga su'aalo kale ayaan ku soo diyaarin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leenahay muuqaalada noocan oo kala ah su'aalaha la isku weydiinayo jawaabahana la istaba marsanayo haddii ay ku raali geliyeen like muuqaalka saar channelkana subscribe saar aad iyo aad baad u mahadsan tahay meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay Soomaali bashbash iyo badhaadho ku waara